muuqaalkani maanta waxa aynu ku eegi doonaa 7 tilaabo sida guusha gaara ay raacaan iyo sida aad ku bilaabi karto sanad dugsiyeed guuleysta sidoo kale tilaabooyin fudud oo noloshaada wax badan ka bedeli kara. Assalaamu calaykum saaxiibadow. Kahor inta aynan bilaabin muuqaalkeena fadlan ha u qaadan muuqaal kale oo aad iska dhaafto kor u qaad indhahaaga daqiiqad yar oo jooji scrollka kadibna daawo muuqaalkan si taxaddar leh. hadda waxaad hortaagantahay fursad cusub, bilow cusub, sanad cusub oo imaan doona. laakiin su'aasha dhabta ah, ma rabtaa run ahaantii inaad noqoto mid ka duwan kii hore aad ahayd? Talaabada koowaad, ha isciqaabin. Noqon mid qalbi adag oo isciqaaba. Waxaan ogahay in laga yaabo inaadan ku qanacsanayn sanadkii hore. Waxa aad naftaada u ballan qaaday wax badan, laakiin way kaa dib dhaceen. Waxaa laga yaabaa inaad samaysay isku day badan, laakiin way kaa fashilmeen. Balse markaa dib u dhacday ama aad u malaysay inaadan gaarin middan iga dhegayso, adigu fashil ma tihid. Adigu waxaa tahay bini'aadam. Waad daciifaysaa, dib baad u dhacaysaa, waa khaldamaysaa, laakiin sidoo kale waad awooddaa inaad mar kale bilowdo. Mushkiladdu maaha inaad dhacday, balse waa inaad rumaysatay in dhicitaankaagu yahay dhammaad. Run ahaantuna dhammaadku waa keliya marka aad isdhiibto. Talaabada labaad, naftaada weydii su'aal. Labadeennuba aynu ka hadalno adiga ka hor inta aynan ka hadlin sida wax loo barto ama jadwal loo sameeyo. Waxaan rabaa hal su'aal inaan ku weydiiyo. Yaa tahay? Maxaad rabtaa dhab ahaantii inaad noqoto? Ma wax baad baranaysaa oo keliya taas oo lagugu qasbay, mise waxaad ku dadaalaysaa riyo aad leedahay? Waxa aan kaa doonayaa keliya in aad run la noqoto naftaada. Weydii, maxaan rabaa inaan noqdo? Jawaabtaas ayaa ku hagaysa, maxaa yeelay haddii aadan lahayn sabab ma adkaysan doontid. Sidoo kale caqabadaha ka hor imaanaya ma wajihi kartid, sababtoo ah ma lihid yoolal toos ah. Talaabada saddexaad, ha ku degdegin, ha ku bilaabin waali, hana dhigin jadwal ah 5 saacadood maalin kasta oo waxbarasho. Hana odhanin noloshayda waxaan rogi doonaa 180 digrii hal maalin gudaheed, waayo adigu ma tihid robot. Waxa aad tahay bini'aadam. Bilow yar ayaa kaa dhigi karaa mid isbeddel weyn sameeya, sida nus saac waxbarasho maalin kasta, hurdo nidaamsan oo aad u fiican aad hurdo, hal cashar oo keliya maalin kasta. Bilowga yar ayaa ku bedeli kara. Intaa haddaa rabto waa aad ka badi kartaa, laakiin dhibaatadu waxa ay ka imaan kartaa in ay kaa noqoto xamaasad. Xamaasaduna waxa ay dishaa joogtaynta. Fikradda ma aha inaad noqoto mid quman, ee waa inaad noqoto mid joogto ah. Kalsoonida joogtadu waxay ka guulaysataa hamiga kumeel gaarka ah. Nambar 4 ama talaabada afraad, doorashada asxaabta. U dooro dadka kugu dhow si taxaddar leh. Badhahayo saaxiibada ka fogow, laakiin fiiri yaa hore kugu riixi kara, yaase dib kugu dhigi kara. Mararka qaar hal qof ayaa kugu rumaysta wax ka badan inta adigu isku rumaysan tahay. Haddii aadan helin saaxiibkaaga kugu habboon, kaasoo ku dhiirigeliya xilli walba, waxaad naftaada u sheegtaa waan sii wadi doonaa, even haddii cid arkin waxa aan gudaha u hayo. Dhiirigelinta naftaada waxa ay kaa dhigi kartaa mid ka run sheega yoolalkiisa, si dhab ahna u fuliya waxa uu doonayo markaas inuu qabto. Talaabada 5aad, daacadnimo iyo joogtayn. Waa maxay farqiga u dhexeeya ardayga guuleysta iyo kan meeshiisa jooga? Ma aha caqli, ma aha nasiib. Farqiga u dhexeeya waa daacadnimada naftaada iyo kartida joogtaynta. Marka aad tiraahdo waan bilaabayaa, bilow dhab ah samee. Marka aad tiraahdo dib dambe uma dhigi doono, hadda samee wax yar. Even xitaa maalintaada ugu xun, ha sugin xaalad quman. Bilow hadda, adiga oo ah qofka aad tahay, adigoo haysta wixii gacantaada ku jira. Talaabada 6aad, naso laakiin ha ka tagin. Waxaa jiri doona maalmo aad tiraahdo ma awoodo, ma dulqaadan karo, waxbarashadana ma rabo. Taasi waa caadi, laakiin ha u ogolaan maalmaha inay go'aankaaga gaaraan. Nasasho qaado, laakiin jidka ha ka bixin. Markaad yara nasato, mar walba xusuusnow cimiladaada, yoolkaaga, dareenkaaga farxadeed waxa uu imaan doonaa marka aad gaarto waxa aad sanado ku riyoonaysay. Talaabada 7aad, ku xirnow Ilaahay. Waxa aan kuu sheegayaa tan anigoon kuugu sheegin sida wacdi, balse waayo aragnimo ahaan. Qalbiyada ku xiran Allah waxa ay helaan degenaansho aysan meel kale ka helin. Welwelka, culayska iyo cabsida guuldareed dhammaantood way degaan marka aad sujuuddo oo aad tiraahdo yaa Rabbi xoog isii, anigu keligay ma awoodo. Haddii aad rabto bilow adag, ha ka dhigin salaada mid caadi ah, ha noqoto mid dhab ah.
ka dhig ducada saaxiibkaaga, ka dhig niyadaada mid nadiif ah, waxbaro si aad u raaligeliso Allah, isla markaana aad naftaada u horumariso. Ugu dambeyn, i xusuusnow aniga markii aad guulaysato, inkasta oo aan ku arki karin ama aanan ku aqoon, haddana waan ku aaminsanahay. Waan ogahay in gudahaaga ay ku jirto xoog aan weli shaqayn. Waan ogahay in qalbigaaga uu jiro dareen diidaya in sanadkan uu noqdo mid caadi ah sida kuwii hore. Sidaas darteed bilow hadda. Ha sugin axadda, ha sugin toddobaadka xiga, ha sugin waqti ku habboon. Bilowgu waa tallaabo yar oo aad hor u qaado, kaas oo ku gaarsiin doona meesha aad rabto maalin maalmaha ka mid ah. Markaad guulaysato, ha iloobin inaad halkan ku soo noqoto oo aad tiraahdo waan bilaabay waana gaaray.